Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada casharka labaad lesson 2. Casharka labaad maanta wuxuu ku saabsan yahay alifbeetada oo xaraf walba oo ka mid ah alifbeetada aanu ka bixin doono tusaale erey uu taagan yahay. A for apple. A for apple waxay u taagan tahay tufaax sida sawirka ka muuqata. B for book. B for book waa book. C for cat. C for cat waa yaanyur ama bisad. D for duck. D for duck waa a. E for egg. E for egg waa ukun. F for fish. F for fish waa kalluun. G for guitar. G for guitar waa gitaarka ama muusiga la garaaco. H for hammer. H for hammer waa buris ama dube. I for ink. I for ink waa khad ama inqaas midan wax lagu qoro. J for jack. J for jack waa garaafe ama weelkan biyaha sharaabka ama cabitaanka lagu shubto. K for king. K for king waa boqor. L for leaf. L for leaf waa caleen. M for mouse. M for mouse mouseka waxaa la yiraahdaa xayawaan sida jiirka oo kale u eg oo wax yar ka yar jiirka uu ka yar yahay uu kana sayn gaaban yahay. Jiirka ayaa ka xoog badan kana sayn dheer, laakiin sida jiirka oo kale ayuu u dhaqmaa, guryaha ayuu galaa sida jiirka oo kale. Mouse ayaa la yiraahdaa kaliya uu ka yar yahay jiirka. Sidoo kale mouse waxaa loo yaqaanaa bahashan computerka lagu xukumo lagu maamulo. Iyadana waad u jeedaan way isku yar egyihiin oo qaabkeeda iyada ayaa loogu magac daray mouse ayaa la yiraahdaa iyadana. N for nose. N for nose waa san ama sanka. O for octopus. O for octopus. Octopus waxaa la yiraahdaa waa xayawaan badda ku jira sida kalluunka oo kale. Waxa ay leedahay 6 faraq ama 6 gamcood. Run ahaantii saddexda xaraf ee magaceeda ugu horeysa oct waxa ay u taagan tahay 8. marka octopus waa xayawaankaasi 8 faraq ama 8 gacmood leh. P for pen. P for pen waa qalin. Q for queen. Q for queen waa boqorad. R for rabbit. R for rabbit waa bakayle. S for snake. S for snake waa mas. T for tree. T for tree. U for umbrella. U for umbrella waa dallad. V for victory. V for victory waa guul. Sawirka sida ka muuqda qof gacmaha kor u taagaya oo guul sheeganaya ayaa ka muuqda, marka victory waa guul. W for watch. W for watch waa saacad. X for x-ray. X for x-ray. X-ray waxaa la yiraahdaa mashiinka lafaha lagu sawiro bini'aadamka. Marka korka waxa ka muuqda waa sawirkii mashiinka, hoosna waxa ka muuqda sawirkii uu soo saaray oo qof feerihiisii la sawiray. Marka x-ray waxaa la yiraahdaa mashiinkaasi lafaha bini'aadamka lagu sawiro. Y for yolk. Y for yolk. Yolk waxaa la yiraahdaa ukunta qaybteeda jaalaha ah ama qaybta adag oo ku dhex jirta ukunta jaalaha midabkeeda yahay ayaa la yiraahdaa yolk. Z for zebra. Z for zebra waxa weeye dameer farow sida sawirka ka muuqata.